بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Abwaan Xarago waxaan hubaa inaad dhammaantiin wada taqaanaan magac waliba iyo mansab waliba oo aad ku joogtaan meesha ama aad igu dhageysanaysaan waxaan ahay dadka dhibanaha ah laga watay caruurtoodii oo ilaa haatan aanan ku haynin raq iyo ruux intaba 19 jir aan jaamacad u dirsanay ayaa naga maqan dhibkaana waxa nala qaba dad badan oo birimageyda oo codkoodu aan meel dheer ku dhacayn xildhibaan u hadlaya iyo wasiir u hadlayanaysa jirin waxa iga maqan baadi nafeed baa iga maqan igama maqna baadi hantiyeed igama maqna waxaan ka aamusi karana ma ahan mana ka aamusayo mana ka aamusi doono wiil yar oo aniga daadi iga yareed ah oo aan jaamacad u dirsaday oo ilaa aw ka soo korayay aan anugu waxa weeye naf iyo maal iyo dhiig iyo dhacaan u shubay oo 11 wadan oo Afrika aan dartiis u maray oo aan islaha bari ha noolaado qalina ha ku shaqaysto waalidkiis iyo dadkiisa iyo diinkiisaba waxa taro waxa si fudud ku kaxaystay niman aan garanayn dhibaatada lagu soo koriyay misana waxaan maqlaynaa in garoonka aadan cadal la keenay meydad 12 dhalinyaro oo xalana lagu xareeyay muttafaq way wax dood iyo khilaafa kama taagna cidii rabtaa in ay dood iyo mara ay saarto in dhalinyaradaas meydkoodii la keenay qaarkood oo xalana ku jira oo naloo diiday inaan aragno oo waalidiinta iyadoo ay seexan waayeen oo ay cunadii cuni waayeen oo ay ka tageen chief iyo joog oo beerkoodii oo banaanka yaala aysan seexan karin waxaan leenahay nimanka raba inay dadaan waa khaa'in wadaniin ilaahay bay ka furteen waana tuugo ilmaha iyagana beec muster u geeyay wadama shisheeye ilmaha xalana lagu xareeyay oo garoonka laga soo dajiyay oo meydadka ah oo naloo sheegay oo aan ka warqabnay oo aan doonnay oo aan u tagnay ninka maanta inkiraya miyaa ninkaasi ilma iyo dad iyo diin iyo dawlad lagu aamini karaa laguma aamini karo annaga waxaan naga maqan awlaad baan naga maqan waxaan dawladda Soomaaliyeed leeyahay dawladda federaalka waxaan leeyahay mudana madaxweyne mudana ra'iisul wasaare haddaad arrintan ogtihiin waa musiibo qaran haddiinan ogayna waa musiibo qaran labaduba waa musiibo qaran haddaad ogtihiin 19 jir jaamacad loo dirsaday oo waxbarasho loo dirsaday oo waalidkiis ka warqabin inaan inta qafaalataan ka tuurtaan ila tariya iyo qadar ka tuurtaan oo waxa weeye aad naf iyo maal waxa uu ninkaasi waxa weeye ilaha waxa weeye meeshaas ku baabo waalidkiisna ku adduunyaha qalad seegaan haddaad arrintaasi ka warqabtaan musiibo qaran weeye dal iyo dad midna ma hogaamin kartaan haddiinan ka warqabin waa musiibo kale maxaa yeelay dad aad ku dhaarateen ma kugu wallaahiba ma kugu billaahiba ma kugu tallaahiba dad leedii yiri haddiinan ka warqabin waa musiibo qaran waxa inta ii weheliya xildhibaanada teer iyo habeenkan dhashay waxaan maqlaayay xildhibaan baan maqlaayay xaarka Allah ku dhajiyay bal maxay qabtaan bal ilmihii yar yarka ahaa oo ayagu ay wakiilka ka ahaayeen oo deegaan doorashadoodii ay ahayd oo Muqdisho lagu dulmiyay oo Muqdisho laga xaabiyay oo hooyooyinka ay barooranayaan miyay waxa weeye hoteelada jiifaan cid ay matalaan ama cid ay hadalkooda ku hadli karaan ma jirto haddii aysan ciyaalkeena noo doonin xuquuqdooda raadin caafimaadkooda raadin raq iyo nolol iyo geeri haddaysan ilmaha iyaga noogu keenin xildhibaanada nagu matala dawladda xildhibaanada nagu matala dawladda haddii aysan ilmaha iyaga noo keenin wallaahi inaysan matalin billaahi inaysan matalin tallaahi inaysan matalin 2021 inaysan cod noo soo raadsan karin waana ku dakanaynaa awal baysan 3 sano wax muuqda oo ay qabteen aysan jirin annaga kuwana matala ma jiraan wax ay annaga noo qabteen maanta annagu ilmaha yagii iyo dad iyo duunyo waxaan lahayn oo awlaada markii inta la qafaashay lala tagay oo ay ka aamuseen ma xildhibaan buu noqon karaa ima noqon karo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hooyooyinka barooranaya waxa kamida hooyadii aniga ay dhashay baa kamida
inta ay hooyaday barooranaysana wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi thumma wallaahi inaan aamusin meel waliba oo ciyaalkaas ay ku mirqeenna waan ka dabagelayaa ilaa anigana iilka la igeeyo oo laga takhaluso inta ka horeysa waan hadlayaa waan sheegayaa waan ku dhiiranayaa meydka yaalaan sheegayaa xalana inuu ku jiraan sheegayaa in shacabka Soomaaliyeed laga qarinayo sheegayaa maxaa yeelay waxa iga maqan qayb jirkayga kamid ah maqan walaalkay iga yaraa maqan nolol iyo geeri aan ku sheegin wiil feero weyn oo la tagay adduunyo aakhira waxa naf iyo maal lahayn qof aan gelinay buu iskala dhaqaajiyay cid ka hadlaysa iyo cid wax iska weydiinaysa ma jirto waxaan leeyahay madaxda kulligood alifle dable sargaal waxa weeye xildhibaan wasiir agaasime taliye unug kulligood habeenkii xil yar loo magacaabo unuga turki buu geysanayaa midka aniga ila dhashaa loo geynayaa carabta wada kasumada waaweyn midka aniga ila dhashaa waxa weeye loo geynayaa cadowga oo beerka iyo kaliyaha lagala baxaya wallahi billahi tallahi ina lagala bixi والله بالله تالله إننا يرين هدانا الشعب كالصوماليات أول وان ظلمنين غير مقدس هدانا وان ظلمنين إسلامي وعوي ما أننا جيسن تري نسبة الله ودويك وأنا لك حرحري تري وأنا لعبورين تري هل كاسنا لك جتنا وان مسلمي سياستكم أنا نحمل من أنا قصدا الظلمن هدنا دولة كما أن نهر إيمان ما أن معارضين وعوية كما أن بنام بحن كما أن ندولين ذاتك ما أن كعن ما أنتي وحي مريسا أولادني إن قريها لغلب بحي أو سكولاتك لغلب بحي أو جامعاتي لغلب بحي أو عدوك أنت اللوغليي أو هبين وليبا مد ميدة هبين لما ديارة إلا سودريس وهدنا حلال لغو حرين هايو وهدنا أن ناركي كريم مركز هوس مريس sidaa markay hawshu tahay annagu dad dhiig lahaanahay baranbaramani daanahay reer muqdisho dad dhiig lahaanahay baranbaramanihin heeriyada waa iska tuurayna mana doonayna maanta wixii ka dambeeya in ilmaha yaga iyo annaga nala kala dab qaado nala kala qariyo nala kala geeyo ma doonayno ugu dambayn marka 300 oo qoys oo beesha saacadahan garanaya oo awlaadoodii ay maqan yihiin oo barooranaya culimada beesha siyaasiyiinta beesha waxgaradka beesha cid waliba oo cid uqaasheeda ka tirsan waa inay hadashaa waa inay meediyaha timaadaa waa inay shirar jaraa'id qabtaan waa inay xildhibaanadu istaagaan dhammaanteen waa inaan u istaagnaa baadi goobka caruurtaasi oo lagu qalanayo dalka dibadiisa habeenba mid meeyda la keenayo waa inaan istaagnaa waa walaalkiina Abwaan Xarago assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh